doorashadan adi ahaan mis soo sharixi doontaa xagga xukuumadda ra'iisul wasaarahaga oo kalena ma noqon doontaan waxa weeye sida hadda tiim u tihiin inaad tiim uga soo wada qayb gashaan doorashada soo socota runtii waxaan bogaadinayaa aan u hambaleynayaa aqalka labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare sida ay u soo ansixiyeen ama ay u soo gudbiyeen sharcigan runtii sharcigan waa sharci taariikhi ah oo muddo 50 sano ka badan ay ahayd markii ugu horeysay noqon doonto markii ugu horeysay shacabka Soomaaliyeed ay u dareeraan sijooyinka u dareeraan oo qof walba uu codkiisa siiyo xisbiga uu rabo inuu isleeyahay dalkan waa badbaadin karaa ama shakhsiyaadka ay rabaan ay u arkaan dalkan inuu maslaxadiisa iyo dantiisa ka shaqeynayo waxa weeye waa awood u soo korortay shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer laga hayay weeye waan ku faraxsanahay anigu inaan taariikhdan aan qayb ka ahay ama aan hadda u ahay madaxweyne hoggaan u ahay inaan gaarsiino shacabka Soomaaliyeed qof iyo cod dastuurka ku taala waa wax dastuuri ah waxaan ka talaabsanayna ma aha runtii 2017kii electionkii ahaa ergooyinka ma ahayn wax waafaqsan sharciga dastuurka ma ahayn kii ka horeeyana ma ahayn marka aad iyaan runtii ugu faraxsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay u helaan awoodooda loo soo celiyo ay u dareeraan doorashooyin anagu xisbi yaan sameeynaa insha Allah haduu ilaahay raado xisbigana wuxuu noqon doonaa xisbi dawladda prime minister aniga aan ku madiisanahay insha Allah haduu ilaahay raado xisbiyada kalena waxaan u rajeynayaa iyaga naftooda inay ka qayb galaan oo ay dadaalaan si ay dalkan u noqdo dal runtii la jaan qaadi kara siyaasadaha casriga ee adduunka ka jira oo multi party system la yiraahdo ama qof iyo cod la yiraahdo qofkii ku soo baxana ama xisbi ku soo baxana uu dalka hogaamiyo